السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن ومول كوين BBS oo laga yirgeliyay xaafadda Islii magaalada Nairobi. Waxa halkan lagu daafuray madasha show oo ah madal ay ku kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafadda Islii oo loogu talagalay in lagu wacyigeliyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankani Kenya. Waxaana madashani ka soo qayb gali doono siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalkani Kenya. waxaa hadda ila taagan alfanaan maxamed kaadheeri oo ka mid ah ka qaybgalayaashii madasha show oo caawa halkan daafurkeedii uu ka dhacay bal ka waran aragtidaada iyo barnaamijkan waxaan leeyahay waa fikrad aad iyo aad u qurux badan oo ka soo maxatay dhalinyaro maasha Allah aad u firfircoon hal abuur leh waxaan leeyahay in badan ku dayaasha mudantiina intaas in ka badan buu ka sugaynaa waana fikradan aad iyo aad oo la dhacnay وانا فكرت انا قاصتنا اسك جعلستay ما شاء الله waxaan leeyahay ma sha Allah hanbalyo maskaxdiina ha noqoto midii intaas in ka badan ka soo maaxata madashan waxay soo saari doontaa dhalinyaro fara badan oo ku sugan magaalada Nairobi aad iyo aad waliba waxaan rajeynayaa dhinac walbaba inay soo saari doonto hadda dhinac u koobo waan garan la'aayo baaxadda intay la eg tahay maskaxdeedaba ka sii weynaato هذا ما بدن waxaa haddana ila taagan Nafisa Siyaad oo ah gabadha kaliya ee u tartantay xaafadda California qaasatan ololihii doorashooyinka ee MCA bal ka waran madashan iyo daafurka caawa iyo aragtidaada والله ما شاء الله waa mahadsantahay caawa aad iyo aad aan u faraxsanahay maadaama barnaamijkan dhalinyarada qof walba talentkiisu soo bandhigay ma sha Allah waxaan zaid ugu faraxsanahay moolkeen ugu weyn oo Soomaali iska leedahay ma sha Allah BBS mool asagana aad u qurux badan yahay ma hay'ada zaid u qurux badan yahay barnaamijka zaid aan ugu helay anigana insha Allah wixii support wax walba habeen walba ay la taaganay week walba maadaama barnaamijka dhaca habeen qayb qaadana insha Allah bal ka waran barnaamijkan caawa daafurkiisa halkan uu ka dhacay iyo aragtidaada sida u soo dhaweynayso wallahi horta ugu horreyn waan salaamayaa salaanka islaamka ku salaamayaa in kasto hadal ay isku fiicdeen barnaamijkan iyo barnaamijka la mid ah oo sugeynay aad baan ugu faraxsanahay walbana waxaan rajaynayaa saan iyo si ku qurux badan inuu noogu dhaco insha Allah biidhnillah thank you marar badan waa ka soo qayb gali doontaa ha si badan in badan lisma weydiinay taas mar walba waa imaana insha Allah haddana waxaa ila taagan Cabdirashiid Maxamed Caato oo ka mid ah aasaasayaasha madasha show oo laga hirgeliyay magaalada Nairobi bal qaabka aad barnaamijkan u soo agaasinteen iyo ujeedka aad ka leedihiin والله وما سنتها كورنتو إن مدة صاحب أكل مغني ما شاء الله نعم مركز كسر مغنى سأرجنا وقت ذا قادنا أنا وبرنامج عصب يمدل عصب ماشي كفرني مثلا وجدت كذا هي إن اللي يرد الصوماليات كلام مغن فكر كذا وكذا الدنيا هنا سكوك يعني أنا وكونه قاب كان أول مرة لهني قاب كان أول شغل لهني هر مركز اللي يرد حفظ إسلي ويا هذا أركيزيت قلت لي كنا حفظ إسلي أنت بدنا في سوق من قبل برنامج هر مركز لكن اللي يرد يعني لهني قار تهريب راعي قار بلود قاضي يقار وحاول يكون مشغول في يوتيوب وحنا مده لكن مالي اسكوي مادان لو عاويو ninka siyaasigiisa ama qaybsiga aan ku leenahay aan ula qaybsano baan barnaamijkan ugu leenahay anagoo inta badan ku martaqaad doono dadka horumar ka gaaray ganacsiga sida guddiga ganacsiga xafidda Islii haatan odayaasha xilligoodii ee dhalinyarada hayeen xagee joogan haddana halkee joogan marka in ay ka wacyigeliyaan barnaamijyo fara badan arrimaha diinta aan galno sidoo kale arrimo fara badan aan ka taawanarnaa bulshada haatan Soomaaliyeed ku sugan magaalada Nairobi barnaamijkan sida aan filayo waxa loogu talagalay dhalinyarada mahibooyinkooda ay ku soo bandhigi doonaan maxay soo noqonayaan waxyaabaha dhalinyarada taalantiyada ay soo bandhigi doonaan
barnaamijkan waxaan ugu leenahay tahay in qowmiyadaha Kenya haatan waxay leeyihiin inta badan u dooda xuquuqdooda iyo barnaamijkooda iyo soo bandhiga dhalinyarada talentiga annaga waxaan ugu leenahay in dadka kale wax la qaybsan karno anagoo isku duuban isku midaysan halkan maanta waxaan soo bandhignay ku daafurnay guddiga ganacsiga xaafadda Islii iyo barnaamij kasta aan ku gorfayno muhiimaddeena ay tahay in Soomaali isku duuban mid ah qof kasta la heshiis la ah inaan dadka kale wax la qaybsan karno marka wallahi waan ku faraxsanahay sida loo soo qayb galay barnaamijka anigu waxaan ka ahaa barnaamijkaasi qayb ka mid ah maadaama dad fara badan aynu ku haynay qabanqaabayaasha waxaan leeyahay dadka barnaamijkan fikirkoodii iyo waliba ka soo qayb qaataan ka mid ahay insha Allah kuwii hadafkoodii iyo riyadoodii iyo qaabkii barnaamijka u rabeen gaar Allah naga dhigay guuleysta idin leeyahay aad baan muxuu idin rajeynayaa in maalin maalmaadkeeda barnaamijkan iyo hadafkiina uu guuleysto insha Allah barnaamijkan inta badan suxufiyiin ayaa qayb ka ah oo muxuu ahaa ii sheeg howlwadeennada hadda waxaan rabaa inaan bal siiyo saaxiibkay Daacad oo isagana howlwadeennada ka mid ah ayo Daacad koronto aad u mahadsan tahay runtii caawa waxaan iskugu nimid madasha show oo ah barnaamij inta badan magaalada Nairobi gaar ahaan Islii aan hore u oolin dabcan markii raay aruurin la badan la sameeyay in dhalinyarta Islii ay u baahan yihiin qof waliba title u hayo sidii ay ku arki lahaayeen ciriiri ay noqotay in yaani madashan oo kale aynu u furno siyaasiyiinta la keeno ganacsatada la keeno wacyigelin badan entertainmentkii oo kale wax waliba barnaamij isku dhex jir mix waay dadka inta badanna waxay u yaqaanaan masrax oo furan sidii Muqdisho lagu dhigayo kale dadka Kenyaanka ama dad sujuugaana waxay yiraahdaan chacha chow hadii ay si kale ay rabaan marka waxaynu leenahay caawada furka ayaa qayb koowaad buu ahaa maalin walba jimcaana uu dhici doonaa adigi iyo dadka kale ka soo qayb galan waan in mahad celinayna aad baa u mahadsantiin dhamaantiin bulshadana waxaan leenahay jimco walba halka iyo BBS Mall iyo barnaamijka madasha ku soo dhawaantahay daawadayaal balanteenu waa toddobaadka xiga barnaamijkan sida howlwadeennada ay sheegeen waxa la qaban doonaa maalin walba oo jimca habeenka sabtida ay soo galayso insha Allah biidhnilaahi ilbaari waana program inta badan ay ku kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi